kula wacan wanaagsan khaarta wada nagala socotaa in meel walba joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada xogii ugu dambeeyay ee caalamka qodobada wararkeena ugu doorona waxaa kamid ah dabley hubaysan oo maalmihii ugu dambeysay baa ku soo badanaysay magaalada Muqdisho iyo dilal toos ah oo habeen walba ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho ayaan warkeena si toos ah ugu eegi doonaa waxa sidoo kale warkeena aad kaga bogan doontaan ciidamada iyagana gaduudsan oo ilaa shalay laga cabanaya isla markaana la sheegay qaybo kamid ah magaalada Muqdisho inay kaga sugan yihiin kuwaasi oo ayagu raadinaya xuquuqdii ay ku lahaayeen dawladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca kalena waxaa socday habeenkii labaad ilaa xalay ilaa shalayta ka socda magaalada Muqdisho baaritaano ku aadan dableydan hubaysan ee ku soo badanaysa magaalada Muqdisho ciidamo uu horkacayo taliyaha gobolka Banaadir Farxaan Farole iyo sidoo kale xubno ka tirsan hay'adda NISA ayaa baaritaano xoogan ka wada gobolka Banaadir si loo xaqiijiyo amniga magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeysay shacabku ay ka cabanayeen Sheekh Aadan Madoobe oo ah gudoomiyaha golaha shacabkana wuxuu magacaabay laba xubnood oo isaga la shaqayn doonta hadaba labadaasi xubnood maxay qaban doonaan maxayse kala yihiin awood intee dhan ayayna leeyihiin maxayse u qaban doonaan gudoomiyaha golaha shacabka warkeena ayaa sidoo kale ku faahfaahin doona waxa sidoo kale warkeena aad kaga bogan doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo ku sugan habeenkii maalintii afraad aan dhahnay dalka Turkiga ayaa isagana kulamo la qaatay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Turkiga qodobo dhowr iyo ballanqaadyo uu u sameeyay sidoo kale ku eegi doona warkeena waxa sidoo kale warkeena aad kaga bogan doontaan xanuunkii lagu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xaaladiisa caafimaad iyo isbitaalkii uu iska dawaagaliyay oo uu tagay waxa ay ku sheeganayaan sidoo kale warkeena aan ku eegi doona ururleyda gobolka Sanaagna dab ayaa ka kacay isla markaana la xakameyn laayahay oo maamulka gobolka Sanaag iyo dhammaanba waxgaradka aqoonyahanka iyo dhammaanba shacabka gobolka Sanaagna ay iskugu taageysteen sidii loo xakameyn lahaa oo loo damin lahaa hase ahaatee dabka ayaa la sheegay in ay awoodi laayihiin walow dawladda federaalka ee Soomaaliya wax gurmada uusan halkaasi gaadhin wali oo ay tirtay warkeena ayaan si toos ah ugu eegi doonaa waxa sidoo kale warkeena aad kaga bogan doontaan xaaladii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya iyo sidoo kale dalka Ethiopia iyadana dhibaato xoogan ay ka socoto isla markaana dilal toos ah oo dadka rayidka iyo xasuuq maalmihii ugu dambeysay baa loo geysanayay shacabka gobolka Oromada iyo midka Axmarada isla markaana isku eedeynayeen dhinacyada ku dagaalamaya dalka Ethiopia ayaa sidoo kale warkeena aan ku eegi doonaa dalka Suudaanna waxaa loo dhisayaa iyadana dawlad ku meel gaar ah isla markaana ay ka soo wada qayb galayaan dhammaan saamileyda siyaasadeed iyo xisbiyada mucaaradka taliyaha guud ee hadda talada haya ciidamadana wuxuu codsaday in laga soo qayb galiyo ciidamada isla markaana iyaguna ay ku qancaan dawladda la dhisayo ayna ku yeeshaan talooyin iyo sidoo kale fikrado ku aadan qaabkii loo soo dhisi lahaa dawlad wadaag loona xakameyn lahaa dhibaatada ka taagan dalka Suudaan qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan warkeena si toos ah ugu eegaynaa balse waxaan si qadarin iyo xushmad leh idinka codsanaynaa haddii uu kusoo gaaro muuqaalka like saar oo aragtidaada noogu reeb qaybta commentiga mahadsanideen aan ku bilownay maalmihii ugu dambeysay magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanayay dabley hubaysan oo ku dhufo ka dhaqaaqa isla markaana kufsi iyo sidoo kale dilal toos ah u geysanaya dadka rayidka ee magaalada Muqdisho dhinaca kalena ciidamo gaduudsan ayaa iyagana lagu dhaxarkiyay maalmihii ugu dambeysay cabashooyin iyo sidoo kale tabashooyin laga qabo xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo badanaysay oo ciidamadu ay ku cabanayaan isla markaana ay dawladda baaqooda iyo cabashooyinkooda ugu gudbinayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya sida ay u heli lahaayeen xuquuqdii asaasiga ahayd ee mishaariga ahayd ee ciidamadu ay heli jireen bil waliba studio waxa ay gula sugan oo arintaasi aan wax ka weydiinaynaa Maxamed Wacane oo isha ku ay xaaladii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxaan soo aad iyo aad ba maxay tahay dableydan hubaysan xalay taxadda dishay mid kamid ah macallimiinta ugu caansan magaalada Muqdisho jaamacadaha ka dhiga waliba qaasatan jaamacadda Horseed macallinka ka ahaa laga yaqaano degmada Dharkeenle iyo dhammaanba magaalada Muqdisho bal maxay tahay dilalkan tooska ee habeen walba magaalada Muqdisho ku soo badanaya iyo dableydan hubaysan ee intay wax dilaan aan la qabanaynin la leeyahay way goobtii way ka baxsadeen aad iyo aad ba mahadsan tahay tan iyo bishii aynu soo dhaafnay ba waxaa ka dhacay magaalada Muqdisho dilal qorsheysan taasi oo lagu la kacayo dad mas'uuliyiin ah iyo sidoo kale dad rayid ah habeen hadda aan saa u fogeyn ayadana waxaa dhacday in dabley hubaysani ay xaafad u dhaceen isla markaana ay ku dileen mid kamid ah dadkii xaafadda ku noolaa marka magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeysay amnigeeda aad ayuu u liitay dilka ayaa waxaa lagu soo waramayaa dilkii xalay ka dhacay weeye marxuum Cismaan Axmed Macow oo kamid ahaa howlwadeenada jaamacadda Horseed
oo ku taala magaalada muqdisho marxuumka ayaa waxaa hormuudka ka ahaa baa laleeyahay dilkani dabley hubaysan oo maalmihii ugu dambeysayba dhibaatooyin kala duwan ka geysanayay gudaha magaalada muqdisho marka dableydani lama garanayo heebtooda laakiin waxaa uun la ogyahay in ay ka geysanayaan dilal ku dhufoo ka dhaqaaqa waxaa sidoo kaleeto iyadana howlgallo wado ciidamada ammaanka sida kuwa nisa iyo sidoo kale kuwa haramcadka oo horkacayo taliya qorole farxaan qorole dhehe markaasi oo ayaguna ay wadaan sidii ay ku xaqiijin lahaayeen dhibaatada halkaasi ka socoto howlgalladan waxay socdaan ilaa habeenkoodii shanaad iyadoo magaalada muqdisho guud ahaan ay ka fulinayaan ciidamada sida gaarka u tababaran nisa si ay kolba mar kasta xaafad aan la ogeyn oo lasii qorsheyno oo dadka ayna ogeyn ayay howlgallada ka wadaan waxaana inta la xaqiijiyey lagu soo qabtay hub sharci darra iyo sidoo kaleeto dadkii ka ganacsanayay hubkaasi oo iyagana xabsiga loo taxaabay dhammaantood wax sidoo kaleeto iyadana ay sheegeen in ay weli ku howlan yihiin meelaha ay hubka sida sharci darrada ay kasoo gelayaan iyo dadka khalkhalka amniga ka abuuraya magaalada muqdisho sidii oo la xisaabtami lahayeen ayaa iyadana lagu howlan yahay sidoo kaleeto waxaa iyadana jirto in ay dhibaatadani qayb ka yihiin ciidamo ku labisan ama xiran dharka ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya oo ayagu aan ka tirsaneyn sida ay sheegeen ciidamadan haatan howlgalka wado waxay sheegeen inay gabi ahaanba aan ka tirsan ciidamada dowladda ee kala duwan marka lama garanayo dadkani meesha ay ka imaadeen laakiin ciidamadu waxa ay sheegeen howlgalka ku jiro sidii ay ku xaqiijin lahaayeen isla markaana ay ku ogaan lahaayeen meesha laga soo abaabulayo amni darrada magaalada muqdisho habeenadii ugu dambeysayba ku soo badanayso sidii lagu xaqiijin lahaa isla markaana looga saari lahaa amni darrada ayay haatan ku howlan yihiin santag waa hagaag gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe wuxuu magacaabay 2 xubnood oo isaga la shaqeyn doonto bal maxay tahay 2 xubnood maxay ka qaban doonaan ama ay u qaban doonaan gudoomiyaha golaha shacabka aad iyo aad baa mahadsan tahay gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa magacaabay 2 xubnood oo la taliyayaal cusub noqon doona si gaar ah labadani shakhsi waxaa loo kala magacaabay yani arrimaha uu kala tashanay arrimaha bulshada iyo sidoo kale xiriirka dadweynaha iyo dib u heshiisiinta ayay labadan xubnood kala qabsan doonaan xildhibaan hore Naciima Maxamed Gacal ayuu gudoomiye Sheekh Aadan Madoobe u magacaabay la taliyaha dhanka arrimaha bulshada sidoo kale gudoomiyaha ayaa la taliye dhanka xiriirka dadweynaha iyo sidoo kale dib u heshiisiinta u magacaabay Cali Yuusuf Cusmaan wuxuuna Sheekh Aadan Madoobe ka codsaday xoghayaha guud ee golaha shacabka inuu arrintaasi dedejiyo si sharci ah ay u noqdaan isla markaana shaqadooda iyo maamuuska ay leeyihiin loo siiyo labadaasi mas'uul marka maalmihii ugu dambeysayba dowladnimadii haatan dhalatay mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay ku bilaabatay in ayadii oon dowlad la soo dhisin la soo magacaabin in cid kasta uu samaysto la taliyaal iyo sidoo kale xubno asaga u gooniya oo gaaraya 7 ilaa 8 madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa magacaabay in ka badan 6 la taliye oo erga u dhigma wasiiro kuwaasi oo kala talin doono dhinaca abaaraha dhinaca dib u heshiisiinta dhinaca dastuurka federalismka iyo sidoo kale dhinaca arrimaha dibadda dhinaca maaliyadda marka aad ay u tira badan yihiin xataa waxaad arkaysaa erge gaar ah oo asagana loo magacaabay dhinaca caafimaadka iyo sidoo kale wacyigelinta bulshada marka waa waxaan hore u jiri jirin sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa asagana ku xigsaday wuxuu magacaabay ilaa iyo 3 la taliye oo asagana uu kala tashanayo dhinaca maaliyadda dib u heshiisiinta iyo sidoo kale federalismka marka waa arrimo isku eeg haatan gudoomiyaha golaha shacabka ayaa asagana 2 soo magacaabay waxaana la sugayaa inuu 5 kale soo magacaabo marka waa arrimo marka nin walba inta tiradu doon u geysanaya wax xadad oo xiran maadaama madaxweynuhu ku bilaabay marka halka waxaad ka arki kartaa in dowladda cusub ee mudane Xasan Sheekh Maxamuud ay bilowday yani waxyaabo aan hore dalka uga jirin laakiin waxaan ergeyadiiba carrada ka badan ee wasiiradu maxay qaban doonaan marka arrinta laga yaabaya waxay tahay haatan madaxweynuhu wuxuu magacaabay ergeyga dib u heshiisiinta iyo sidoo kale federalismka waxaa jirta wasaaradda arrimahaas ku takhasusto ergeyga musiibooyinka iyo abaaraha waxaa iska leh wasaaradda ayadana marka howlahani sida la isku waafajin doono waxaa laga sugi doonaa nidaamka Soomaali heshiisa madaxweyne mudane Xasan Sheekh Maxamuud marka isku soo duuduub xaaladda markaad fiiriso mas'uuliyiinta dalka ugu sareyso waxa ay wadaan nidaam aan hore uga jiri jirin dalka isla markaana haddii dhanka wanaagsan laga fiiriyo
aan wax dhiba keenaynin oo aad u wanaagsan. وهجاج مدحوين حسن شيخ محمود دلك تركيا ayuu ku sugan yahay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Turkiga ayuuna kulamo la qaatay maalmihii ugu dambeysay ama bilihii ugu dambeysay jaaliyadu waxay la kulmayeen cadaadis iyo sidoo kale dad ka tirsanaa oo dhulkaasi ku noolaa oo Soomaaliyeed oo ayagana la soo tarxiilo dawladda Turkiga ay soo tarxiishay caqabado kale to ayaa gudaha dalka Turkiga naftirkiisa ay sheeganayeen dawladda Turkigana waxay kaga jawaabtay in sharci darro ay ahaayeen ganacsiyada la sameeyay iyo sidoo kale shakhsiyaadka la soo tarxiilay si sharci darro ay wadanka ku joogeen bal muxuu ballanqaadiya waxa la arkay uu sameeyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud muxuu u ballanqaaday muxuuse ka qabanaya xaaladahaasi aad iyo aad maalmihii ugu dambeysayba dadka ku dhaqan dalka Turkiga waxay la kulmayeen faquuq iyo sidoo kaleeto arrimo cunsuriyadeed oo maalmihii ugu dambeysay lagu la kacayay ganacsatada iyo dadka hantida ku samaystay wadanka Turkiga arrimahaasi iyo kuwa kaleeto oo jiro iyo madaxweynuhu ay u soo dhigeen jaaliyada ku dhaqan wadanka Turkiga gaar ahaan magaalada Ankara ee xarunta wadanka Turkiga waxaana ay ka wada hadleen oo ay u soo gudbiyeen codsiyo dhowr oo ku aadan in shatiyadii ganacsi lagala laabtay in sidoo kaleeto lagala laabtay fiisiyada deganaashada ee la siinayay gabi ahaanba baasaboorka Soomaaliya la joojiyay in ay la kulmayaan faquuq dhanka yani bini'aadanimada xataa kolay oo lagu la kacayo Soomaalida aad ayaad moodaa galaangalkoodu u badan yahay oo ganacsigii Turkida ay lahayd ay gabi ahaanba ay afduubeen oo gacantooda ay gashay sidaas darteed waxyaabo badan oo tiro badan ayay ka wada hadleen markii la fiiriyo codsigii ay soo gudbiyeen wuxuuna ballan qaaday gabi ahaanba in arrintaasi uu wax ka qaban doono uu kala hadli doono madaxweynaha jamhuuriyadda wadanka Turkiga dhanka kale xanuunkii madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa gabi ahaanba waxaa la filayaa in ayadana ay war ka soo saaraan howlwadeennada iyo sidoo kale ergada la socotay uu ka mid yahay madaxa warfaafinta ee xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayadana waxyaabaha ka soo kordho halkan ayaynu wada wadaagi doonaa haddii ay beera waa hagaag kaymaha gobolka Sanaag dhibaato ayaa laga soo sheegaya dab ayaa qabsaday baa la leeyahay shacabku waa xakameyn laayihiin maamulka halkaas ka dhisan naftirkooda cabashooyin bay ka muujiyeen dabkani waxaa la yidhi wuxuu gaari karaa dhul badan dhulkii ay xoolo dhaqatadu ay xoolaha lagu daajinayay iyo dhammaanba saameyn buu deegaanka ku yeelan doonaa haddaan la xakameynin baa la leeyahay bal dabkaasi muxuu ahaa muxuuse ka dhashay dabkan waa iska kacaa moogtay meelo badan oo kaymaleyda inta badan dabka uu ka kaco waxaan ognahay California wadanka Mareykanka inuu mar badan ay dabka kaco Australia uu ka kaco waxaana keento cimilada xilliga kuleylka oo kaleeto ayaa keenay laakiin haatan laguma jiro xilliga kuleylka laakiin haddana arrinta jirta ayaa waxay tahay in dabkii la xakameyn laayay gabi ahaanba waxaan ognahay in dalka Soomaaliya gabi ahaanba uun lahayn hanaan dabdamis oo dhanka diyaaradaha ama cirka wadamada caalamka intooda badan markii kaymaha uu dabka kaco waxa lagu damiyaa diyaarado biyo ayagu keenaya ama waxyaabo kaleeto intay qaadaan dabka la dul istaagay isla markaana daminayo laakiin arrintan haatan waa la maareyn layaa waxaana shacabku ay sheegeen in ay dhibaato halkaasi ay ka jirto isla markaana ay ka codsanayaan caalamka in halkaasi gacan ka geystaan ayadoo maamulka Soomaaliland arrintaasi ay wax war ka soo saareen laakiin dadka deegaanka gaar ahaan maamulka gobolka Sanaag ay ka soo saareen cabasho ku aadan arrintaasi waxaana la filayaa in dawladda Soomaaliya sidoo kale deeq-bixiyaasha caalamka ay arrimahaasi ay wax ka qabtaan si loo badbaadiyo musiibada halkaasi ka kacda aad iyo aad baad mahadsantahay dhinaca kalena dalka Itoobiya maalmihii ugu dambeysayba waxaa ka socday dagaaladii hore qaab ka duwan isla markaana shacab dad rayada oo xasuuq ba'an loogu hayay dad aad u tiro badan oo dhowr boqol oo qof gaaraya ayaa hal meel lagu dilay kuwaasi oo dhinacyadii ku dagaalamayay dalka Itoobiyana ay midba midka kale uu ku eedeeyay dawladda federaalka ayaa ku eedeysay jabhadda xoreynta Oromiya in ay dadkaasi iyadu xasuuqday isla markaana ay ka dambeysay xasuuqii loo geystay ciidamadooduna ay yihiin kuwa xasuuqay halka jabhadda xoreynta Oromiyana ay ku eedeysay ciidamo ama maleeshiyaad u dhaqaaqay bay dhaheen ama oo ka amar qaatay bay dhaheen maamulka gobolka Oromiya iyo sidoo kale ciidamada ammaanka ee dawladda federaalka waa kuwa militariga oo ku sugan gudaha deegaanka Oromiya ayaa xasuuqaasi geystay bay ayaguna ku jawaabeen dhinaca kalena dalka Suudaan waxaa loo dhisayaa dawlad ku meel gaar ah isla markaana la sheegay in ay dawlado badan ay ka soo qaybgali doonaan oo arrin wadaag ah ama xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale saamilida siyaasadeed lagu wada qanacsan yahay in laga soo dhisi doono dalkaasi taliyaha guud ee ciidamada isla markaana ah hadda ninka gacanta ku haya ama maamulaya wadanka Suudaan ayaa sheegay in xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale dhinaca ciidamada iyo dhammaanba saamilida siyaasadeed ay ka soo wada qaybgali doonaan wuxuu sidoo kale sheegay howlwadeennada ku howlan in wada hadallada la furo waa in ay ku soo daraan buu yiri ciidamada wada hadallada sababtoo ah buu yiri ciidamadu waa in ay ku qancaan maamulka la dhisayo isla markaana ay meesha ka saaraan keligii talis ama mid
maroorsada xukunka oo aan dadka waxba ka siinaynin, taasi oo u sheegay inaan laga aqbalaynin haddii aysan ciidamadu aysan ka mid noqonin wada hadallada la furahaya ee laga furahaya dalka Suudaan. Wixii ka soo kordhana